الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. kusoo dhawaada mar kale Softgate Academy gaar ahaan casharkeenii afraad oo ahaa cashar taxane ah oo ku saabsan SQL Server 2014 ee ku baxay afka Soomaaliga. Anigoo ah Maxamed Isaaq Xasan ayaa idiin soo jeedinaya. Waxaan ku faraxsanahay inaan heerkan isla soo gaarnay gaar ahaan maadada la yiraahdo SQL ama database-ka. Marka maanta casharkeena wuxuu ku saabsanaan doonaa laba qayb oo ah habka ama qaababka loo bedbedelo waxa loo yaqaano datada ku keedsan database-kana ugu keedsan iyo sidoo kale habka loo bedbedelo table-ka. Waxaad marka ogaataa naqshada ay ku shaqeyso database-ka. Waxaad waxyar ka ogaataa naqshada ay database-ka ku shaqeyso waxay tahay ama SQL-ka ku shaqeyso. Marka hore waxaa la dhisaa waxa loo yaqaano marka hore waa inay database-kii laftirkiisa ku dhisan tahay. Haantaas waxaa loo yaqaanaa waa database-kii. Kadibna waxa lala falgalayo oo database-ka dhex yaalana waxaa waaye tables-kii waaye. So marka kan waa table, kani waa table, kaas waa table, okay, midkan kale waa table, sidoo kale kaas waa table, sidoo kale kan waa table. Marka waxaa laga yaabaa ilaa iyo 10 ama 20 ama 100 ama kasii badan oo table in uu noogu jiro database-keena. Mar walba marka waxaa habboon in ay islahaadaan magaca ama nidaamka u raacaysid magac bixinta table-kaaga iyo database-kaaga. Tusaale, magaca database-kaaga hadduu yahay admissions hadduu yahay sida annaga oo kale hadda admissions hadduu yahay oo database-kaaga uu kugu keedsan yahay wax loo yaqaano admissionada ardayda kugu keedsan yahay ama table-kaaga uu yahay university uu yahay. Tusaale, Horyaal Business University dheh. Jaamacad jirta maahan laakiin I hope inay jaamacado takhasus gooni ah dhigaya in Soomaaliya ay ka bilowdaan. Waan rajaynaa. Okay. Marka tusaale marka database-kaas noo samaysan. Marka table-lada ku jirana waxaa fiican in ay related ku ahaadaan database-ka. Tusaale, table uu noqdo admission, mid kale uu noqdo examination, mid uu noqdo library, mid ay noqoto wax loo yaqaano examination soo sheegay finance, mid uu noqdo finance uu noqdo examination-kii, finance-gii, admission-kii iyo wax loo yaqaano student affairs-ka mid lagu keydiyo inay related ahaadaan. Because maxaa yeelay markaa ka soo haldaynay wax loo yaqaano database maxaa dhaanay a collection of related data. Database waa collection of related data. Database-ka waa collection collection oo isku dhex jirta laakiin related ah. Marka haddii related-kii laga waayo waxay ka dhigan tahay in database saxan uusan meesha yaala. Marka waxaa ku dadaashaa marka database-kaaga magaciisa iyo table-lada ku jira isla ahaadaan. Marka table-ladaas marka datada xaggee degtaa? Datada waxay xaggee degtaa haddii lagu dhaho dato? Waxay degtaa database, waxay sii degtaa table, waxay sii degtaa wax loo yaqaano row and column. Datada waxay degtaa row and column. Inkastoo qaabkan datada row iyo column loo yaqaano tabular format loo yaqaano oo ah data tabular ah loo yaqaano qaab table u samaysan loo yaqaano, laakiin qaabka ay degto wax loo yaqaanaa row and column format ama tabular format. Maxay ka dhigan tahay row and column format? Waxay ka dhigan tahay qaabkan oo kale. Hadda tusaale table-keena haddaan ku soo laabto aan dhaho select all from admissions haddaan dhaho waxaa noo soo baxayo admission haddaan dhaho waxaa noo soo baxayo okay aan soo saaro marka table-kii darada aan sameynay database-kii darada aan sameysanay Softgate ahaa table-kaan sameynay haddaan qaldanayn table-iska registration. Okay, wuxuu ahaa registration marka. Okay, all from registration. Okay, haddaan marka soo saaro wax loo yaqaano okay marka hore waa inaan aan isticmaalnaa marka hore waxaa ka naga qaldamay. Marka hore waa inaan isticmaalnaa database-ka saxda ah waa inaan isticmaalnaa.
kadibna waa inaan dhahnaa noo soo saar. Okay, hadda waxaa noo soo baxaya table-keena. Marka hore marka database waa inaa isticmaashaa. Database oo saxan waa inaa sheegtaa. Waa inaa dhahdaa haanta la yiraahdo Softgate 1 ama database Softgate 1 ee gey, kadibna waxaa u baahanahay table registration inaan soo muujiyo. Marka table-keena waa kana qaab tabular format ayaa u kaydsan tahay oo ah row iyo column. Column marka waxaa dego information oo related ah. Row-na waxaa dego record loo yaqaana full information dego. Kala fahmana soma? Maxaa dego column-ka maxaa dego? Column waxaa dego wax loo yaqaano column waxaa dego related information, xog wada xiriirta, related info. Row-gana maxaa dega wax loo yaqaano full info, information ka buuxa ayaa row dega ama jiifutax ama joogutax. Joogutax waxaa dega xog isku mid ah. Hadda fiir database-keena noo celi. Fiiri column-kan fiir maxaa ku jira data isku wada eg oo ID ah 101 1003 1004 1002. Student name waxaa noogu jira wixii magac ah, contact number wixii number ah, faculty wixii faculty ah, fee wixii fee ah. Afahmana soma? So marka waa data related isku ah waay, laakiin row maxaa noogu jira data buuxda. Tusaale haddaan soo qaadano rowga saddexaad, aan soo qaadano rowga saddexaad, even haddaan rabo inaan soo muujiyo fiiri rowga saddexaad ama ardayga saddexaad Liibaan Cumar Cali aan rabaa xogtiisa inaan soo muujiyo. Ase column ma ahan, ase row aan rabaa inaan soo muujiyo. Waxaan leenahay select from, waxaan leenahay registration where aan leenahay ID is equal 1003. kadib marka waxaa noo soo muuqanayo Liibaan Cumar Cali oo row ah, column dhammaystiran ah. waxaa noo soo baxay Liibaan ID-giisii, magaciisa, contact number-kiisa, faculty-gu birto oo ah medicine iyo lacagtuu bixiyo. So marka ma masa row marka wuxuu noo keydiyaa sidiisaba full information, column-na wuxuu noo keydiyaa related information ayuu noo keydiyaa. Marka maanta waxaan u gudbaynaa inaan table-keena badbedel aan ku samayno. Tusaale waxaan rabnaa inaan soo muujino dhammaan waxa noogu jiro. marka horeyso waxaa isticmaalaysaa wax loo yaqaano select leedahay, scientific qaabka loo qoro waa select all from leedahay, kadibna table name ka sheegay. Fahmaysaa? So marka waa kasa registration waxaa noo soo muuqanaya dhammaan table-keena. Marka waxaan rabnaa inaan bedelno ID-ga asli ID-geeda rabnaa inaan bedelno. waxaan isticmaalaynaa command-ga ama query-ga la yiraahdo update. waxaan leenahay update table registration aan leenahay. waxaa u baaseynaa marka qiimaha set, waxaan leenahay ID is equal 1002 where my 100 waxaan leeyahay 1010 aan leeyahay where marka ID-ga markii hore uu la mid ahaa 1002. okay, waxaan leeyahay meesha uu la mid ahaa midkaas ii soo muuji. okay, update table registration ID-ga waa saxan yahay, maxaa qaldan marka registrationka magaca marka la inaa saxno isku day. okay, errorka ama qaladkii laga naxinayaa waa wax iska caadi ah. okay, waxaan rabnaa 1002 meesha inaan bedelno. near okay command-ga stable-ka ka saar meesha. okay, waxaan leenahay marka ii soo muuji aan leenahay, kadibna waxaa ii soo muuqanayo in asli ID-geeda lagu bedelay 1010 ama 1010 loo bedelay. asli ID-geeda waxaa loo bedelay 1010 ayaa loo bedelay. okay, waxaa kaloo wax ka bedelaynaa Liibaan ayaa medicine-ka ka wareejinaynaa. waxaa u bedelaynaa wax loo yaqaano surgery ayaan u bedelaynaa. waxaan leenahay update kadibna registration dheh, inteeba la sheegay looma baahno. okay, update waxaa leedahay registration ii sameeyay, registration table-ka ah ii update gareeyay. marka set faculty column-ku magaciisa soo qaado is equal faculty-ga magaciisa waxaa ka dhigtaa, waxaa u bedeshaa wax loo yaqaano surgery u bedel where markii hore uu ka ahaa, marka halkii hore faculty-ga uu ka ahaa markii hore wax loo yaqaano medicine meeshuu ka ahaa waxaa ku bedeshaa medicine meeshuu ku ahaa waxaa ku bedeshaa
surgery ku bedel marka table-kana dib nooga celi select the all from the registration maxaa dhacay marka isbedel fiiri mar walba marka highlight kan saar waxaa isticmaali kartaa shift iyo home waxay ka koraysaa numlog ay ka koraysaa shift home shift qabo kadibna home qabo kadibna waxaa ku highlight saarmaayo dhammaan sadarkaas ama paragraphkaas ama linekaas ayaa ku highlight saarmaayo kadibna execute waa dhihi kartaa F5 isticmaali kartaa directedna muuska isticmaali kartaa marka Liibaan Cumar Cali meeshiis wuxuu ku bedelmay wax loo yaqaano surgery ayaa ku bedelmay meeshii wuxuu daatadii marka waxa ku sameynay manipulation ku sameynay ayaa tirtirnay ayaa bedelnay update aan ku sameyn okay waxaan rabaa marka inaan علي عبدي علي خدك عن كساره علي عبدي علي إن خدك كساره أيان ربع أما علي عبدي علي ما جيس أنا بدله مركو هرئيسه حلا قابك هذا مريا حلا update table name كشك registration حلقة ما كده ورا دي ملهن حلا set name set وحلا student name is equal quotation because maadaama ay tahay wax la register gareynayo wax la keedinayo string ay tahay ama character ay tahay waana isticmaalna quotation aan isticmaalna haddii ay isticmaalna magaciisa caadiga Ali Abdi Ali aan dhaho where aan dhaho wax ka bedeshaa ID-giisa uu la mid yahay 1001 hada ayada qalada maana le kalkaas haku naga qabsana halkaan naga qabsan doona syntax-kaas ama ereyada aqortay lama yaqaano ayaa la isticmaalaya ujeeda syntax near Abdi lama yaqaano wax ku qoran lama yaqaano okay marka waan isticmaalnaa quotation waan isticmaalnaa one quotation waxaana ka arki kartaa enterka furaha bidixda ka jira way enter computerkaaga furaha keyboardka ka jirto ayaa la isticmaalaa soo marka halkan waxaa ka arki kartaa haday waxa ku xiray isla column-kii beddelay ku xiray weerta laakiin hadda waxaan ku xiray column kale oo ka duwan ku xiray labada maxay kala duwan yihiin labada waxay kala duwan yihiin isla daatadii ayay xoog saarayaan marka muhiim ma waa iska caadi waa iska caadi macnaha maxay tahay hadda fiiri Ali Abdi Ali set name waa ina magac bedela marka Ali Abdi Ali waa ina ka bedela magaca oo aan dhahaa Hamze Ali Abdi waa inaan dhahaa hadda marka waa inaan fiiriyaa marka okay hadda waa inaan execute daha okay haddana waa inaan soo muujiyaa okay hadda marka Hamze Abdi Ali Abdi waxa loo bedelay meesha ID-giisu yahay 101 waxaan kaloo dhihi karnaa Hamze Abdi Ali ama Hamze Ali kali igu bedel meesha magaciisa uu yahay hadda column-ka raba doora kara where student name equal uu yahay hadda student name-ka hadda uu yahay Hamze Ali mar walba waa ina complete ka dhigaa xogta Hamze Ali Abdi meesha hadda uu ka yahay waxa igu bedeshaa Hamze Ali kaliya igu bedel okay isoo muuji waa isku midkii sooma somar column-ka raba ku xiri karaa dib ma lahan shuruuda column-ka rabo ayaa ku xiri karaa okay haddii aan rabno marka inaan Hamze tirtirno ka hor waxaan sameeynaa haddii aan rabno inaan Hamze tirtirno waxaan sameeynaa delete from alenai kadib waxaan isticmaalayna wax loo yaqaano kadib waxaan isticmaalayna mar walba marka fiiri keyword waxa laga rabaa inay farta colorka blue ay noqoto haddii blue noqon wayso qalada jiro error jiro qalada jiro waa ina iska saxdaa marka okay delete from leedahay table name-ka sheegaysa registration halkaan ka door kara automatically auto completion-ka ayaa ii saxayo delete from registration waxaan leeyahay where ayaan leeyahay ID-ga is equal oo la mid ah 1001 execute okay table-kayga igu celi marka hadda maxaa dhacay isbedelka dhacay maxaa waaye waa select from registration auto completion-ka mar walba isticmaal execute okay Hamze Ali halkaas ayuu ka baxay Hamze Ali halkaas ayuu ka baxay okay ID-ga bedel hadana waxaad tiraahdaa 1003 okay hadana maxaa dhacaya bal fiiri hadana isoo door hadana qof kale ayaa baxay haddii aan rabo marka table-kayga inaan dhammaan xogta ku jirta aan tiro 100 qof 50 qofood 60 qof 10 qof waxay tahay aan tiro waxaan leeyahay delete from table name ka sheeg registration kadibna waxaan leeyahay execute kadibna two rows because maxaa yeelay table-keena oo dhan waxa ku jirtay wax loo yaqaano laba xog ayaa ku jirtay table-keena waxa ku jirtay laba xog ayaa ku keedsaneed marka okay hadda marka table-keeni uu noo yaalaa table-ka noo yaalaa see table-ka ku tira marka hadda fiiri haddaan yiraahdo select all from haddaan dhaho ama fiiri tusaale
haddaan database ka aan dalno darar casharkii ugu horreeyay waxaan ku sheegnay casharkii hore in database u kala baxaan system database iyo user database. System database always on the top way, midka ugu horeeyo waa system database. System database marka waxaa ku jiro master database, model database, MSDB iyo temp database ayaa noogu keedsan. Fahmana soma? Master database, model database, MSDB iyo temp ayaa noogu keedsan. Okay, saa wada jeedno. laakiin haddaan master database aan xirno waxaan u gudbaynaa user databases. databaseda userka uu samaystay boqolaalay gaari karaan ilaa halkan ay ka safan karaan. Okay, so marka haddaan soo furo Softigate 1 ka hadda isticmaaluna maadaama halkan uu noogu qoran yahay, halkan hoosan uu noogu qoran yahay, videoga bal fiiri noogu qoran yahay, waxaan leenahay soo furayna tables marka kadibna hal table ayaa hadda noo samaysan. tableka marka halkan waxaan ku samayn karnaa, waxaan arki karnaa designkiisa, waxaan arki karnaa wax loo yaqaano delayed aan ku samayn karnaa, rename aan ku samayn karnaa. laakiin waxaa habboon in la isticmaalo query, in la isticmaalo ayaa habboon, ama English ama code SQL ama program SQL la qoro kadibna saas loo bedelo, maadaama annaga aynu nahay wax loo yaqaano query executor ama wax loo yaqaano database programmers. waxaan leenahay marka drop table registration ayaa leeyahay. tableka registration la yiraahdo khadka ka saar iga tuur. hadda marka waxaan leeyahay select all from registration. maxaa imaanaya hadda marka? maxaa jira haddii ay sheegi karo qaladka dhacaya ay sheegi karo ya qiyaas karo. videoga post dheh please fadlan, qaladka dhacaya soo sheeg. okay, waa saxan tahay. qaladka dhacaya waxay tahay unknown object aan la garanaynin waay. okay, object invalid. object namekaas waxaa raadinaysid object waxaa lagu magacaabaa database iyo table ayaa object la yiraahdaa. so marka objectigaas lama hayo. hadda marka waxaan leeyahay use master. waxaa isticmaashaa databaseka master isticmaal. okay, maxaad isticmaalaya databaseka master? laakiin haddaan dhaho use Softigate 1 isticmaal, maxaa imaanaya? Softigate 1 in la isticmaalayo oo databasekaas database jiro uu yahay ayaa halkaas imaanayso. okay, haddaan idhaahdo marka mar kale aan rabaa inaan table sameeyo, maadaama tablekaas rabaa inaan wax ka bedelo, create aan leeyahay table admission, videogii hore haddaa xasuusatid. kadib waxaan leeyahay name car aan leeyahay 15 altera rabaa inaan wax idinka tuso. kadib waxaan leeyahay class car waaye 10 car waxaa laga wadaa character. kadibna waxaan leeyahay class number aan leeyahay, waxaan leeyahay waa car ama waa integer ayaan leeyahay. kadibna tablekayga halkaas ayuu ku xireeya. okay, kadibna waxaan leeyahay select all from wax loo yaqaano admission. so marka admission table uu dhisan yahay laakiin xog igu jirto ma lahan. haddaan rabo inaan xog geliyo waxaan isticmaalayaa insert ayaan leeyahay into admission ayaan leeyahay. kadibna values waxaa ii soo gelisaa kan koowaad, waxaa ii soo gelisaa cumar isoo geli, cumar isoo geli. kadibna cumar class ku dhigto waa form 1 ama waa class 8 ayuu dhigtaa cumar, class 8 ayuu dhigtaa, class number ku dhigtana waa 008 ayuu dhigtaa. okay, xog kala duwan badan aan rabaa inaan geliyo. cumar, caasha iyadana class 8 ay dhigataa, comma laakiin dheh waxaan rabaa inaan xog kale geliyo. caasho, caalim inaan dhaho mar kale, haddana xog kale aan geliyo qof kale. caalim wuxuu dhigtaa class 9, class numberkiisa waa 009. okay, execute de. okay, comma halkaas ka maqan because commadan waxaa loo yaqaanaa delimiter, waxaana waxay tahay waxay u dhaxaysaa 10 column-yada. kan waa column, kan waa column, kan waa column. so marka haddii commada aad ka tagtid it means laba column ayaan data gelinoyaa waay, taasoo qalad ah. okay, kadib waxaan leeyahay select all from ayaan leeyahay admission isoo door tablekaas. kadibna cumar class 8 ayaa noogu jira. so marka waxaan rabaa inaan ku soo daro column cusub aan rabaa inaan kusoo daro oo la yiraahdo mobile. waxaan leeyahay alter isticmaala. alter waxaa waay tableka in wax loogu bedelo. alter table ayaan leeyahay, add ayaan leeyahay, kadibna mobile aan raacinaa integer inuu yahay. kadibna waxaan leeyahay execute. okay, table nameka iga maqan admission. okay, execute aan leeyahay, kadibna
table name mar walba hilmaamiya kadib waxaan leeyahay select all from waxaa qiyaastaa marka saddexdii arday aan regis garaynay columnkan cusub maxuu data noo xarin doonaa wuxuu noo xarin doonaa null ayuu xarin doonaa null waxaa loo yaqaanaa marka la joogo SQL unknown information ayaa loo yaqaanaa waa information aan la aqoonin oo zero aanan ahayn value aanan lahayn information aan joogin ayaa null loo yaqaanaa okay wajida soma null ayaa noo keedsan null ayaa noo keedsan okay haddaan rabno meesha nullka inaan buuxino maxaa ku xareynaynaa update aan isticmaalaynaa soo qaldana waxaan leenahay update ayaan leenahay register admission set ayaan leenahay mobile is equal ever 6 dheh where name is equal nameka meesha uu ka yahay cumar meesha uu cumar magac yahay waxay ugu bedeshaa mobile numberka igu buuxi okay admission kaliya waaye admissions waxa la yiraahdo ma jiro okay kadib haddana qofka kale bedeli karaa hadda marka maxaa dhacay fiiri xogtii waa la buuxiyey sooma nalkii waa la dhamaystiray soo marka alter table admission ayaa isticmaalaynaa markaan rabno column cusub inaan kusoo darno markaan rabno column kale inaan tirnana maxaan sameynaynaa waxaan leenahay drop column aan leenahay kadibna mobile alter table drop alter table admission table name key kadib waxaan leenahay drop waxaa iga dhahdaa columnka la yiraahdo mobile iga tir ayaan leeyahay okay hadda tablekii haddaa soo dooro fiiri ma jiro column la yiraahdo mobile la yiraahdo ma jiro okay marka videoga halkaan uu noogu egyahay videoyaasha kale ayaan sii wadanaynaa insha allah hadduu la yiraahdo casharka kale oo shanaad inay la socoto isku day aad ayaad u mahadsantihiin marka